iyo dekada magaalada Muqdisho iyo buundooyinka waa isku mid weey buundooyinka gobolka Gada ka burburay Xasan Sheekh asagoo hal maalin la ka hadlahay midna arag hal maalin asagoo ka hadlahay gobolka Gada Soomaaliya inteedii kale waa ka go'an yahay waa dal dhan iyo gobol dhan oo Soomaaliya ugu baaxad weyn markii bari laga reebo waa go'doon caawa hal maalina hantidii qaranku u lahaa oo 22 sano Maxamed Saad u tacbahayay maalin bashay gadanaya guriga hooyooyinka u dambeeyay hal guri oo dawladdu ay leedahay iyo hal dhul oo ay dawladdu leedahay buundooyinkaas lagu dayactiri karaa si gaar ah oo u adeegsanaya shakhsiyadiisa oo isticmaalaya gobolkaasna wax culaysa oo ka saaran iyo mas'uuliyadda total ma jiro inaad mareexaan oo wax fahantid reer Jubbaland baa tihiin Axmed Madoobe waxa idin kaga maqan meel idin kama jiraan ogaadeen waxaad ka tamanaysaan meel idin kama jiraan dhulkaana Ilaahay idin ku wada beeray dadkii xisaabtami lahaa oo imaan lahaa oo waxa in ka maqan ka xisaabtami lahaa baa tihiin Xasan Sheekh xisaabtan idin kale ma jiro waxna idin ma hayo ha kullu go'ina Xasan Sheekh kuwa aan shakhsiyad lahayn oo dhadhamada iyo cunada raadin hayo oo hankooda iyo sharafkooda iyo waxa la isku dilahayo ama la isku haysta aan qiimeyn karin oo adinka idin ka dhashay oo dhexdiina maalin walba imaan hayo ka hadlahayo inaad ka feejignataan oo mowqifkiina iyo go'aankiina aad cadaystaan baa la rabaa dadku waxay rabaan baa sharci ah Xasan Sheekh hantidii ummadda Soomaaliyeedna waa ku takrifashay ciidankii qaranka oo lagaaga tagay oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kugu wareejiyeen waad burburisay 18,000 oo ciidana oo carbiyeysan oo tababaran oo qaranka Soomaaliyeed u dhaartay baa lagaaga tagaa meeshaad ogtahay baad geysa caawa hal nin kama joogo meed maxaa u dambeeyay midka la sii wado intii ka dambeysay ciidamada ayadaheeda lagaaga tagay waa intaad ku Kaaskambooni aad keentay oo caawa ka yeesu dhibtay ayagoo cadaysan xamar loo soo daad golan hayo qaxooti ah sumcaddii iyo sharaftii iyo karaamadii Soomaaliyeed baa halkaas geysa Abiy Ahmed waxaad gacmaha uga shuminayso wax kale tamaahan Jubbaland ila burburi way dalkii iyo dadkii Soomaaliyeed baad Abiy Ahmed inaad gacmaha ka shumiso oo ugu gasha Jubbaland ila burburi way qiimihii Soomaaliyeed iyo magacii Soomaaliyeed meeshaas aad geysay kaaba nabad qaadanayno wallahi baan ku dhaartay oo billahi baan ku dhaartay inaan ka nabad qaadanin Soomaaliyana aan kugu fiirsanay waxaad ku hayso ciidanka Soomaaliyeed ciidan qaran oo qabiil oo sanahayn oo qaran leeyahay oo calankii astaantiisi wato oo ummadda Soomaaliyeed inay gumaysiga ka baxdo oo xorriyad hesho u taagan way ciidanka Soomaaliyeed oo meeshii ciidanku ka gadoodi jiray oo tilaabo iyo ficil ka qaadi jiray bay maanta dalku marahaya haddiina ficil qaadaynin oo ciidanka dalka aadna qabanaynin waxa la idinka doonayaa danaha gaarka oo Xasan leeyahay inay nafulinin waa ku baabacdeen aad baan ugu mahadcelinayaa General Odawa inuu san qayb ka ahayn qaladaadka meesha ka dhacay cid walba Soomaaliya maanta waa ogtahay waa u mahadcelinayaa waan uga tacsiinayaa ciidankii taliyaha looga dhigay waxa lagu sameeyay iyo joorfalka loo geystay aad baan uga tacsiinayaa ummadda Soomaaliyeedna uga tacsiinayaa generaalka xukumayo magaca ku lahaa ciidanka oo dhalinyarada ahaana aad baan uga tacsiinayaa waxaad yeelaysaan ka feejignaada ciidanka Soomaaliyeed oo Xasan Sheekh ma ahan madaxweyne qaran inuu u adeega rabo adina qaran aad u adeegtaa baa la idin sameeyay reer nin walbana reer buu ka yimid haddaan qaran loo adeegayn nin walba reer buu noqon hayaa ha burburina qaranka Soomaaliyeed waxaan u adeegayn maya inaad tiraahdaan waa idin banaan tahay sharciga idin ogol xeerka idin ogol ciidanimada idin ogol astaanta qaran oo aad wataan baa idin ogol qarankii buu burburin hayaa adinku astaanta qaranka wata qaranka yaa idinku burburin Soomaali waa kala dareenka kano midnimadeedii wada jirkeeda qarannimada keenaysa midnimadii wada jirkeena waa tag meel walba dab baa ka holcayay Soomaali asagana sabab haya mid ayada Puntland bulshada ka burburiyay la dagaalamay nabad ma uu rabo heshiis ma uu rabo 10 jeer buu dani gogol dhigay hadduu ku baaqay inuu wada hadal iyo ergo uu soo diray wali yahay wada hadal baan diyaar u nahay ma uu doonayo ujeedada gaar ah oo leeyahay dalkan inuu ku cayaaro maskax uu leeyahay iyo siyaasad uu leeyahay kuma uu shaqeynayo ciidanka Soomaaliyeed inaad ka feejignaataan Xasan Sheekh waxa uu wado yaa la idinka doonayaa iska arooriyo Xasan wax kasto bixiya waka Abiy Ahmed gacmaha ka shuminayo Soomaaliya inuu la qabto oo Soomaaliya la duleeyo rabaa waana taladii Ismaaciil Cumar Geelle way Ismaaciil Cumar Geelle taladiisi way waxa uu ku shaqeynayo